بريادة هنا هلا وقمية حر حديد أوكي سو شركة وين وسي وضعنا محنري and فينوس اللايتكي نوركي ناكتين فينوس waxay ku dhacday goodka Aries na waa first sign waa wonky yeah halka laga keenay way yeah and oo hadaynu de waxa la muujinaya ilaa waxba laynu tusayaa hadayna ku saabsan tahay yeah Aries-na uu yahay the first sign of the zodiac yeah ilayn maxaa la yidhaha beerta xawayaankii nugu jirnaa waa la iswada dagaalayaa yaa Aries-na dab ku shidaa yeah it was first fire sign weeye marka waa la iswada gubayaa ma fahanteen it's funny videogii hore intaan sugayay upload garaynayay baa waxay ka soo baxday gabadh program ka samaysay iminka waxaan ka socda dee Maraykanka ilaa waa la iswada fashilayaa society kastaba iyo party kastaba fire and ice blue and red yaa waa la wada fashilmay mogtahay marka dabkana waxa buu nadiifinayaa qashinkii oo dhan baa banaanka u soo baxaya Soomaalitii dhaweytole waad ogeydeen USAID waa tii la xiray ofisyadoodii ilayn waxa weeye qaab ka mid ah USAID oo dee maxaa la yidhaahaa sirdoonada Maraykanka yaa ku saabsan yaa marka faylalkii wixii oo dhan baa la eegayaa markaas haddaad u fiirsatid maaragtay haddaad u fiirsatid de waxyaalaha lacag lagu bixinayo oo lagu leeyahay aid baanu bixinaynaa waa barnaamijyadii de oomoluudnimada barnaamijyadii transgenderka ku saabsanaa balaayo oo dhan baa halkaas la hoos gelinayaa yaa trafficking balaayo oo dhan wax anshax kastoo xun iyo dee si dadka maaragtay loo baabiiyo ila waa meeshii laga keenaye marka wixii oo dhan baa soo wada baxaya marka nimankii imika waxay la qaylinayaan kuwii dee ogaa waxay sameynayeen iyo society-ga ay baabiinayaan marka aidkooda ha haystaan ma loo baahna yaa wuxuunbay ku adduunkuunbay ku rogayeen ma fahanteen marka waxaan arkay sawirkaa kana soo dhigaya wallahi gabadhan intana video ka samaynin ayaa shalay toole baan arkay naagtii Ilhaan Cumar yaa ila hooyadeed waa Yemeniyada aabaheedna waa raxan weyn laakiin de reerahan MJ waa qashin la isku soo wada dadaray oo mafia weey wadadaan la fahmayn hay waxaan arkay iyadoo meesha taagan oo de kamarada isku aadinaysa ha USAID-kii baa la xidhaya marka waxyaalo badan ay de kan nacaskan dani ay u ballan qaaday Puntland iyo de iminka maxay yidhaaheen kayfafkii baanu xoreynaynaa wixii baana soo baxaya waad arki doontiina wallahi can't wait tooshka la isku qabanaya it's funny because ninkii Peter Hegseth yeah oo drunkard oo nin waalana yeah waa kii yidhi buuraha goolis baan rushaynaynaa yeah oon ka saaraynaa al-shabaabkii buurahay ku dhuumanayaan wallahi waan qoslay cause video ma soo dhigay intaana buurahan iyo waxaan ba laga sheekeeyay markaas aan idhi suuradal kaaf iyo waxaan soo xasuustay Plato's Cave markaasay ku soo qoreen meesha yeah waxay ku dhuumanayaan buuraha hoostooda al-shabaabku buurahay ku dhuumanayaan godadkaas aan ugu galaynaa yeah marka groupka iyo dadka maaragtay wadankoodii yidhi halkan ay terrorist ku jiraan oo dadkii deganaa bariga iyo waqooyiga raba inay in la rusheeyo oo la baabiiyo waxaasaa Soomaaliya isweydiiya waa qashin weey wadanka wallahi dadka ma in laga saaraa waxaan Soomaali maaha and anyways intaas waa intaa so maxaan idhi Uranus horta Uranus waxa loo yaqaanaa Soomaali cigaal baa loo yaqaanaa yaa cigaal hadaynu u fiirsanana cigaal waa bahashan de markay dadkan Bedouinka ama de saxarada degan leen dadka saxarada degan Soomaaliya bas Sahel region bay ku taalaay yaa oo de xoolo dhaqatada iyo dadka shaqaysanaya cadceeda waa kuwa mara saarta koofiyadaas ay cadceeda iskaga qariyaan de waxay rabaan waxay dul saaraan ay ku geejiyaan sina uga dhicin koofiyadu Soomaaliya halkaas cigaal la idhaaha ma fahanteen waxaas imika de kuwan carabta iska dhigayo iyagu inay de dadkii laga hadlayo taariikhda ay yihiin ayay ka dhigeen imika tradition iyo dhaqan yeah basically waa bahal yaro cigaal la idhaaho yeah inaguna Soomaalihaan ba cigaal baa dadku nimankaaba cigaal loo bixiyaa waa halkan uu ereygan ka imanayo egalitarian oo ku saabsan equality dad shaqaysanaya dad equal ma fahanteen marka magaca Uranus oo de af Soomaalihaan cigaal baaba la idhaahaya it's not something new to us ma fahanteen Uranusna waa wax weeye planetka isbedelka waa planet barafa waa planet si fiican dadka u tusaya waxa taagan energy-giisa oo revolutionary energy and revolutionary oo de isbedel xoogan wata so that is very interesting so maaha yeah last geelna geel baa la yidhi laakiin de last geel at the same time xoolaha ku sawiran Soomaali baa ku sawiran
intaasina waa intaa so iran idinka gaadhsiiyo so waxaan idhi waxaa jirtay Great Fire of London la oranayo oo 1666 dhacay oo inta ogaan suuqyadii London badh baa wada gubatay markaasaa dib city planning loo sameeyey dadkii de wax lahaa ee dhul lahaana dhulkoodii waxoodii way waayeen ma fahantay waa the same game unbaa imikana la ciyaaraya maxaan ku idhahay dad u fiirsatid imika wixii Los Angeles ka dhacayna dee dad baa hantidoodii guryahoodii waxoodii la gubay sida insurancekoodiina guryihii insurance house waxaa la yidhaha property insuranceyoodiina waa khadka laga saaray that means then dadkii the insuranckii lacagtii ma siinayo marka lacag ay ku iibsadaan dhulkii ma haystaan ba wax ku dhistaan marka dhulkii bay noqonaysaa qasab inay iibiyaan ay ka baxaan biyahana yaa maamulayay biyahana waxaa maamulayay family imika areada ugu taajirsan oo imika beeraley raba inay noqdaan oo de basically political party kastaba sponsor gareeya Resnick family baa la yidhaahaa oo beeray leeyihiin xitaa biyuhu iyagay u xidhan yihiin privatization of water biyihiiba iyaguba xitaa iyagaaba dee kanaaladii kayd gareeyay oo biyihii iyagaa haystay xitaa dabka waxaan lagu damiyey wax la waa biyo ma fahanteen biyahana private bay ahaana iyagaa iska lahaa marka Somaliland imika dabkii waahayn baynu garanaynaa dabkii wajaale imikana dabkii xafadan maxaa la yidhaahaa daacadda dabkii qabsaday gobonimona suuqa gobonimona waa loo soo socdaa ma fahantay suuqyadii oo dhan baa la gubayaa marka dadkii wax alle waxay helayaan ma jirto dhulkiina waxay ku qasban tahay meeshoodii yaraa ay haysteen iyo dhulkoodii in laga iibsado lacag baynu ku caawinay waxaan maqlayay kii biyaha xidhay oo Awsiciid miyaa la yidhaahaa groupkiisa intay biyihii xidheen imikana waxay leeyihiin dadkii baanu lacag ugu deeqnay waxaani waa shax isla wada socota beenya la isku sheegin ninku waa shaydaan weeye nin kasta oo xoolo iyo maal iyo inuu hanti yeesho dadku cunaya shaydaannimaduna waa sidaa ma fahanteen marka wuxuu yidhi 250,000 pound donate garaynaya meaning dhulkii baa laga saaray dadkii already meesha city plan baa loo sameynaya waxbaa laga iibiyey investment iyo balaayaa lasoo geliyey real estate-kaa loo baahan yahay marka maxaa la yidhaahaa gobonimo suuqaana waa loo soo socdaa wallahi dadka wax loo ogolaya ma jirto laakiin waqtigani waa waqtigii si fiican la isku gubayay qof kasta oo maaragtay dariiq khaldan ku socdayna eventually God will catch up with you anyways waa la isgubayaa ha la isgubo waa idin salaame